اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa shacabka reer Djibouti sanad guuradii 47 ay ka soo wareegtay maalinta xornimada ay ka qaateen gumeystii Faransiiska. marka xiga waxaan maaragtay aan jecelahay inaan ka hadlo madaxweynuhu habeenkii dhaweeyay qodobkii uu ka dhawaajiyay ee ahaa in lagu galayo maaragtay qalabkii indhaha la saarayay run ahaantii qalabkaas waa in la soconaa waxa la rabay in lagu tijaabiyo doorashadii golaha deegaanka iyo baarlamaanka doorashadiisa saarnayd iyadoo oo ay saa tahay waxa lagu bixiyay 2 milyan bay ahayd ay dawladda ay ku bixisay Taiwan qalabkaasi ma shaqeyn imikana waxa weeyaan uma malaynayo in doorasho lagu gali doono qalabkaasi taas waxay noqonaysaa sheekadii la meeraysan madaxweynaha wax mid baan oran lahaa oo kana cusub lahaa madaxweyne waxa tahay madaxweynaha jamhuuriyadda ummadda Soomaaliland morankuna ma fiicna tii lagu heshiiyay ee ahayd in lagu galo doorashada iyadoo oo maaragtay ay kaalarkii dadkoodu wataan oo systemkii caadiga ahaa ee golaha maaragtay ay golayaasha la soo mariyay labada gole commissionkuna uu soo jeediyay heshiiska lagu galay ayaa aniga ila tahay in lagu galo haddii kale mana fiicna inay noqoto moran iyo maaragtay ila meerayso marka waxaan jeclaan lahaa in doorashadu ay noqoto sideeda lagu galo golahana maaragtay ay xor iyo xalaal ay noqoto si maaragtay transparency la isku xisaabtamo ayaan ugu oran lahaa walaal baasidii dhamaantii